siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsaraysa xisbiga mucaaradka wadani oo qaar ka mid ah warbaahinta maanta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay saameynta qalalaasaha dalkaasi Itoobiya ku yeelan doona Soomaaliland iyo Soomaaliya. siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo tafaasiil ka bixinaya qalalaasa dalkaasi Itoobiya ka dhaca saameynta ku yeelan karo geeska Afrika iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waxa ka mid ah hadaladiisii. runtii arrintan Itoobiya guud ahaanba degnaanshaheeda iyo منطقة عادية بيسكو حرين وود المهمة وود هالدلمي دقاليه عادي عاد وكب عيو وحق دقالها ما أنت جيس كأفريقيا ودن كأوه هالدلمي بحاه الريا وإيجي حي يسقي كيني على بعض وعي هالدلمي عاد ونكسيهين وودن هالدلمي بحاه دبعت ذكتاجن صوماليا هالدلمي دور كعيارية وودن هالدلمي الصومالي لان هالدلمي بحاه سي عادي عاد وبلارن ay isugu xidhan yihiin kolka dhibaatada hadilmay halka ka dhacda waa mid aan saameynayno Itoobiya hadilmay maxaa mandaqada geeska Afrika oo dhan saameynaysa sidaas aawadeed sida ogsoontihiin hadilmay maxaa African Union ku hadilmay waxa weeye waa xaruntii African Union ka taasina hadilmay Afrika oo dhan baa aad u aaneynaysa wixii hadilmay halka ka dhaca dadka iyo dawladaha geeska Afrika si gaar ah way aaneynayaan xagga hadilmay siyaasadda dawliga ah ee hadilmay caalamkana dawladaha waaweyn amba reer Yurub ha noqdeen ama Mareykan ha noqdeen amba China amba Ruushka amba India aad iyo aad bay hadilmay maxaa Itoobiya maanta marxaladda ay socoto hadilmay ula socdaan sidaas aawadeed geer hadilmay gaar ahaan hadilmay dhinaca siyaasadda hadilmay marxaliga ama hoose siyaasadda mandaqada iyo siyaasadda dawliga ba arrintaasi waa arrin aad u saameynaysa waxaana ila tahay hadilmay caalamku hadilmay inuu ku wada hawlan yahay sidii arrintaas hadilmay loo dejin lahaa in hadilmay la helo anigu aanan ku kalsoonahay in arrintaas hadilmay aanay faraha ka bixi doonin oo si wanaagsan looga shaqeyn doono. geesta kale siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo warbaahintu wax ka weydiisay qaabka uu arkay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya dhawaan uga furmaya dalkaasi Djibouti ayna markii ugu horeysay dhexdhexaadinayso dalkaasi Djibouti ayaa ka hadlay qaabka ay dalkaasi Djibouti u dhexdhexaadin karto labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ana ka mid ah hadaladiisii. wallaahi arrintu horta kolka horeba wada hadalkooda waa mid khuseeya Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti haddii lagu shiro iyo haddii meel kaleba lagu shiraba wada hadalka iyo arrintan hadilmay afgaradka cida laga doonayo horta waa Somaliland iyo Soomaaliya kolkaas Djibouti si gaar ah ayay uga duwan tahay geeska Afrika dawladaha geeska Afrika kale waayo laano waa wadan badidiisa dadka ku nool ay Soomaali yihiin waa wadan qoondihii Somaliland iyo Soomaaliya isu geeyay dhinac ka ahaa taariikhdiisu inuu isaguna ka mid noqdo arrintaasi hadilmay kolkay arrintii Somaliland iyo Soomaaliya ay hadilmay hagaagi weyday ee khalkhal badan lagu arkay ee Djibouti goostay inay iska arrintaas ka mid noqon kolkay noqoto dawladaha geeska Afrika Djibouti waxa weeyaan dawladda ugu faradhoobana arrintan fahmi karta Soomaaliyana fahmi karta oo door ka ciyaartay arta shirkii ka dhacay ee maanta dawladda xamar ka dhisan ay hadilmay maxaa ka bilaabantay Djibouti baa u sabab ahayd Djibouti baa ka shaqeysay Djibouti hadilmay iyadoo arrinta hadilmay lukulahayd aad u fahamsan maanta hadilmay wadciga Soomaaliya sidii yahay misna haddana hadilmay Somaliland iyo Soomaaliya dhibaatooyinka hadilmay dhacay suuragal ay u noqon weyday in hadilmay maxaa dawladdii ay wada galeen 60kii inay hore u sii socoto oo ay burburto dawladda aad iyo aad u fahamsan geeska Afrika ku taala waa Djibouti weeyaan. Maxamed Aadan Sayed, Somali News TV, magaalada Hargeysa.